bismillaahi raxmaani raxiim waxaan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena qubanaha xaqiiqda wararka caalamka iyo Soomaaliya qodobada ugu xiisaha badan aad ku daawan doontaan haddii barnaamijyo ka noqdana waxaa qayb ka noqonaya Tehran waxay wacd ay ku martay inaysan marnaba u jilicsanaan doonin Mareykanka haddii Iran Trump uu qabtay 15 maalmood inay markaasi aqbasho dooda wajahada dagaalka markan waa intaasoo isku bedela dagaalka ama daqiiqado un kaliya uu qaadan kara dhinaca kale madaxweynaha Brazil Luiz Incoyo oo isna markaasi kulamo xasaasi ah isna la leeyahay ra'iisul wasaaraha Hindiya barbartanka siyaasadeed ee maqooninaya urursiga iyo waliba isbahaysiga wajahada dagaal ayaa marna markaasi looga gambanaynin magaalada New Delhi iyana waxaa ka socda kulamo xasaasi oo si adag looga hadlayo ganacsiga casriga ah iyo waliba dhinaca difaaca macdanta Hindiya iyadoo Hindiya xiriirka gabi ahaan bay u muuqato inay u jari doonto Mareykanka oo muddooyinka ugu dambeeyay habsami leh halkaasi ugu guranayay macdanta dhinaca kale Pakistan iyana waxay duqeyn diyaaradeed ay ka fulisay gudaha Afghanistan iyadoo weeraradani ay markaasi ku dhinteen tiro dad ah ku dhawaad in ka badan tiro 10 kor dhaafaysan ay ku dhaawacantay waxaan sidoo kale isla eegi doonaa maxay tahay sababta keentay waqtigan ee duqeymaha aan markaasi joogsiga lahayn Pakistan ay markaasi la duldhacayso Afghanistan waa sida xaalka bariga dhexe iyadoo markaasi uu si adkaanayo waliba markan waxa qarka loo saaran yahay inuu qarxo dagaalkii saddexaad ee adduunka ama dunida waxaan sidoo kale isla eegi doonaa doorka shirarka kala duwan Soomaaliya iyana maalintii saddexaad waxaa si weyn ugu socda shirka madasha mucaaradka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya oo qodobo xasaasi ah laga soo saaray qodobadaasi waliba wixii kale nagu soo kordha ayaan saaxiib ku qaadan ligi doona qubanaha xaqiiqda wararka caalamka Soomaaliya waxaan ka dalbanayaa markuu ugu horeyso walaal saaxiib channelka subscribe noo saar nooc imaamada channelka saaxiibada hore nool joogo like noo saar muuqaalka saaxiib far badan si aan u gaarno mahadsanidin soo dhawaada saaxiib Ramadaan Kariim Tehran waxay wacd ay ku martay in aysan marnaba u jilicsanaan doonin cadaadiska Mareykanka waqtigan Iran uu ku hayo iyadoo saacadihii ugu dambeeyay si weyn ay u muuqatay in Mareykanku cadaadiskiisu aad ay u sii xoogaysanayay Trump oo isna markaasi u qabanayo 15 maalmood un kaliya in Iran gabi ahaan markaasi ay ku aqbasho wajahada hadalka ee markaasi looga hadlayo habka nuclearka taasi oo loo arko in waqtigan saameyn kale colaadeed ay keeni karto madaxweynaha dalkaasi Iran Mohammad Pezeshkian ayaa sheegay in Tehran aysan u jilicsanaan doonin cadaadiska Mareykanka ee ku saabsan wada xaajoodka nuclearka kadib markii Donald Trump uu markaasi Khamiistii uu ka digay in waxun ay markaasi ka dhici doonaan haddii aysan markaasi heshiiskan 15 maalmood gudahood aysan ku aqbalin talaabada tani ayaa imaanaysa waqti Mareykanku gabi ahaanba dunida si weyn markaasi loogu qabtay inuu dagaal uu ku qaadi karo Iran inkastoo waqtigan Tehran ay talaabo culus ay muujinayso dawladtuska military halkeeda ugu dambeeyay awoodeeda ciidan iyo military waxay isku geysay xeebaha iyo waliba sidoo kale xindaabyada gudaha dalkaasi ee Tehran wali cabsi kama qabto yoolka ee ku aadan Mareykanka waqtigan uu diyaarinayo iyadoo tiradii ugu badneed ee ciidamada iyo waliba maraakiibta dagaal uu Mareykanku mar hore uu sii geeyay bariga dhexe laakiin uu muuqato waqtigan in uu diro warqad kaliya ku socoto taliyaha hogaaminaya ciidamadaasi waana qorshaha ugu adag ilaa haatan waligan talaabo u qaadi lahayd Donald Trump iyadoo ona maalmihii ugu dambeeyay fariimo kala duwan ay hawada isku marinayeen dhinaca kale Tehran kama joogsan doonto ayaa la yiri haddii Trump uu markaasi uu qaado talaabo ka dhan ah weerar inkastoo warmaysiga seefaha ay mar horeba galka iskala soo baxeen laakiin dunida un dhaxda ugu jirto waxay ka soo kordhaa qubanayaasha dambe ayayna ku qaadan ligi doona markana madaxweynaha Brazil Luiz Incoyo ayaa isna markaasi kulamo uu la yeelanay ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra oo magaalada New Delhi si ay markaasi ugu wada xaajoodaan ganacsiga maalgashiga gaar ahaan dhinaca macdanta muhiimka ah ugu tahay macdanta difaaca iyadoo Hindiya ay raadinayso aqbalayaasha cusub ee markaasi ugu yeeraan ku tiirsanayaasha ay u qabto Shiinaha ayaana si weyn markaasi u maamulo qodista iyo waliba farsameynta macdanta jiifka ay waliba dunida taasi oo wax weyn ugu soo korinaysa xakameynta koonfurta bilihii ugu dambeeyay xilli Mareykanku isku dayay in uu jabiyo gacan ku haynta uu ku hayo warshadaha ee sii kordhaya Brazil ee markaasi ku xigto Shiinaha markan loo eego kaydka macdanta ee muhiimka u ah ee markaasi kheyraadka ee loo adeegsado gawaarida iyo waliba korontada ku shaqeeya qalabka ee tamarta qoraxda iyo waliba telefoonada casriga ah motorada diyaaradaha iyo waliba gantaalada halistiga ah taasi oo keeni karta waqtigan in Brazil wax weyn ay u soo kordhin karto walow ay gabi ahaanba ay ka mamnuucayso markan in Mareykanku si weyn uga shaqeeyo bayaan uu soo saaray luulayaan markaasi ku sheegay in kordhinta maalgashigu iyo waliba iskaashiga arrimaha tamarta ee cusboonaysiinta kor loogu qaadayo macdanta muhiimka u ah waliba
dhexaadna waa heshiiska horumarineed ee uu markaasi ku saxiixayo. Si kastaba ha ahaatee faahfaahinno dheeraad ah ma aysan bixinin heshiiska macdanta, iyadoo Hindiya waqtigan u muuqato tallaabada loo qaadayo inay tahay mid si weyn ay ugu sii kordhin karto waxtarka ka dhankaay. dhinaca kale Pakistan waxa iyana markaasi duqeyn diyaaradeed ay ka fulisay gudaha Afghanistan, iyadoo weeraradan ay ku dhinteen ku dhawaad 10 qof halka tiro kale intaasi ka badanna markaasi ay ku dhaawacmeen. sida la sheegaya Pakistan duqeynta ay gudaha Afghanistan ay ka fulisay tirabeel ayay markan ku sii socota, iyadoona inta badan lagu sheegayo in markaasi loogu jawaabayo qaraxyo iyo waliba ismiidaamino iyo weeraro oo ka dhaca gudaha dalkaasi Pakistan oo la sheegay in amriyan xubno ku sugan gudaha Afghanistan iyo waliba kooxda Taliban ee Pakistan ee TTP loo yaqaano, sida markaasi warisay wakaalada wararka Reuters. wasaaradda difaaca Afghanistan ayaa duqeymahan cambaarisay, waxayna markaasi ku tilmaantay xadgudub cad oo walibana ka dhana madax banaanida qaranka, waxaana sidoo kale la sheegay in jawaab ku haboon oo walibana miisaan u leh laga bixin doono xilligan ay ku haboontahay. tallaabo kasta ha ahaatee weeraradan waqtigan ee Pakistan ay ka geysanayso gudaha Afghanistan ayaa la sheegay in waxyaabo badan ay ka tirsanayso, walow aan si cad shaaca looga qaadan. haddana waxaa muuqata in saansaanta labada dhinacbu ay colaad kale iyaguna halkooda ay kasii dhaxuli karto. tallaabada tani ma aysan imaanin keliya xilli ay markaasi u qaadeen labada dhinacba, laakiin waxaa la warinayaa in ay jirto qorshe ka dhana iyo waliba sidoo kale dagaal oo waliba cusboonaada saameyn kastaba ha yeelatee. waxaana u muuqata waqtigan in qorshaheeda ay u qaadi doonto ay yana tallaabo kale jawaab ay kaga bixin doonto. si kastaba ha ahaatee yoolka siyaasadeed ee aanan markaasi weli loo aqbalaynin. dhinaca kale telefishinka Ruushka RT ayaa isna markaasi baahiyay Iran ee markaasi ku sameysay marin biyood markaasi horma loo yaqaano tijaabo gantaal oo cusub nooca ridada dheereeya oo ku xiran markabka dagaalka oo cusub, kaasi oo markaasi lagu bixiyay Solyo Kas la yiraahdo, laguna magac daray generaalkii Qasem Soleiman oo markaasi lagu dilay 2020 amar uu ku bixiyay Trump, iyadoo markaasi warbaahintu ay sheegtay in gantaaladan cusub ay awood ay u yeelan doonaan in markaasi si kedis ah ay ku weerari karto diyaaradaha gantaalada.